nuxurka wararka qodobada aynu ku eegi doonana waxaa ka mid a waxaa la shaaciyey natiijada imtixaanaadkii la qaaday guud ahaan ee gobolada Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dafiray maamulka waqooyi bari, boqor boormado oo cadeeyay mowqifkiisa ku aadan koonfur bari, ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo u hambaliyeeyay ardayda kaalinta koowaad galay. u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan. aan ku bilaabay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku sugan yahay gobolada dhexe, magaalada Dhuusabareeb ayuu joogaa. madaxweynaha munaasabada galmudug asaaskeeda ayuu ka qayb galay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ka hadlay maamul goboleedyada aas-aasmay. wuxuu sheegay markii laga reebo Somaliland iyo Puntland inta kale in ay soo bilaabmeen in markii koowaadba Jubbaland ay dhisantay. waxaa ku xigsaday buu yiri koonfur galbeed, waxaa kaloo ku xigsatay buu yiri galmudug. waxaa u dambeeyay maamul goboleed la sameeyo lana aqoonsado maamulka la yiraahdo Hirshabeelle. hadalkiisa ayaa intaasi uu kusoo gabagabeeyay madaxweynaha. ilowsho iyo ugu talagal lama yaqaano ilaa iyo hadda, maadaama aanu soo hadal qaadin maamulka ee waqooyi bari. madaxweyne xasan sheekh maxamuud asaga ayaa kaalin weyn ku lahaa dhisada maamulka ee waqooyi bari. haddaba waxaa jirtay hadal hayna in beesha caalamka ay diiday maamulkan waqooyi bari la yiraahdo, maadaama laba maamul reer ahaan horay loo diiwaan geliyey, Puntland iyo Jubbaland. mid kaloo saddexaadna aan lagu dari karin, midda kale ugu darana inaan dhaqaalaba loo haynin. hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama uu soo hadal qaadin, waxaa rumoobaysa in maamulkaas ee waqooyi bari meesha uu ka baxay. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay shaacisay imtixaanaadkii la qaaday ee dugsiga sare. 3 arday ayaa kaalinta koowaad galay. 240,000 oo arday ayaa imtixaankaasi galay. ardayda haddaba imtixaankan ee kaalinta koowaad galay ayaa waxay kala yihiin: ardayga kaalinta koowaad galay waxaa lagu magacaabaa maxamed ciise daahir yuusuf. waxaa kaalinta labaad gashay gabar lagu magacaabo farxiyo faarax cumar cigaal. kaalinta saddexaad waxaa gashay aamino khaalid cabdalla. waa 3 arday ee kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad kala galay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xamse cabdi barre ayaa u hambaliyeeyay ardaydan. waalidiintooda ayuu mid ula hadlay, sidoo kale ardayda ayuu la hadlay. ra'iisul wasaaraha intaasi uguma harin, wuxuu kaga farxiyey in waxbarashadooda heerka jaamacadeed ay bixinayso dowladda federaalka, dal allaale dalkii ay doonaanna loo dirayo. waalidiinta waxay u ahayd farxad aan la soo koobi karin. kaba sii darane ardayda dadaalay ee kaalimaha 3 galay in ayana dowladoodii ee hab iska tabar yaraatay ee tukubaysa u ballan qaaday waxbarasho meesha ay doonaan aan laga bixinayo oo ay kafaarad qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya. boqor Cusmaan oo Maxamuud Boormado wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliya. 135 oday dhaqan ayuu ka mid yahay. boqor Boormado ma aha nin gabada warkana la gabada. hadda ka hor waxaa laga hayaa Soomaaliya 2 dowladood ayaa ka jirta, shabaab iyo dowladda federaalka. haddii reerka guud ka dhashay loo diiday madaxweynaha inay qaataan, haddee wuxuu yiri anaguna warday shabaab madax ka nahay. hadalkii ugu la yaabka badnaa uguna geesisanaa ayuu ahaa hadalkaas ee horey loogu diiwaan geliyey boqor Cusmaan oo Maxamuud Boormado. maanta wuxuu ka hadlay maamulka la yiraahdo koonfur bari. wuxuu sheegay in ay taageersan yihiin dhaqaale, muruq iyo xoog, wax allaale wixii ay awoodaan ay la garab istaagi doonaan. wuxuu hadalkiisa taa uu ku daray, miyaynu wax kala haynaa waaba dhiigayaga, ayuu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa boqor Cusmaan oo Maxamuud ee Boormado. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu u socdaali doonaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. muran xoogan ayaa ka taagan. Puntland way diiday xasan sheekh maxamuud inuu Gaalkacyo tago. Gaalkacyo waa 2 qaybood, qaybna Puntland qaybna galmudug. madaxweynaha waa uu tagi doonaa Gaalkacyo.
madal isweydiinaya waxay tahay dhinaca Puntland ma u tallaabi doonaa haddii uu u tallaabo maxaa dhici doona Soomaalida warbaahintu way isu goodiyaan laakiin waxaa dhaqan u ah cid allaale cidii madaxa ee u timaado inay u sacbatumaan gadaalba ha ka laadaan haddii ay doonaan madaxweynaha ka hor gaalkacyo wuxuu tegi doonaa deegaan kale oo ciidan la sheegay ku dhawaad 4,000 halkaasi lagu tababarayay in tababar uu soo xiri doono talow ma gaalkacyo ayuu ku aftixi doonaa lama yaqaano waa kuma aysantigiin barnaamijkeenan nuxurka wararka sidaad u daawataan aan u mahad celiyo dhinaca kaamirada iyo farsamadaba Axmed Nuur Bedri barnaamijka xigitaanu kooda kulmayno nabadgelyo. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil familkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horeysa oo ku dirtana waa free